waa dagaal u dhaxeeya al-shabaab ciidamada dawladda nabad sugidda iyo kuwa xureynta jiinka oo ka dhacay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. soo saaro kiliga Maxamed Diirshe al soo jeesto. dagaalka ayaa saacado kooban socday waxaana hogaaminayay Korneel Shataqey Taliya Cali Dheere Maxamuud Aadey oo ka tirsan nabad sugidda dhinaca jiinka waxaa hogaaminayay laba xidig la ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cali Cabdullaahi Cali Korneel Xanafi iyo waliba taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Hirshabeelle Korneel Jelaani Farole. dagaalka kadib waxaa warbaahinta la hadlay abaandulaha ciidamada Afjar iyo xureynta jiinka waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dagaalkii ay la galeen shabaab. aniga oo ah abaandulaha ciidamada dib u xureenka jiinka webiga shalay waxaan howlgal ku qaadnay tuulada Shanlow. howlgalkii shalay waxaan ka bilaabnay kiliga Maxamed Diirshe ilaa iyo ay xamad nooga bilaawatay ilaa ay Shanlow. waxaan isdaba joognay nimanka argagixisada al-shabaab anaga oo ah abaandulaha ciidamada dib u xureenka jiinka webiga waxaan diyaar u ahay ilaa aan ka dhimano in aan dalkayna dadkayna aan difaacano anagoo isgarabsanayno saraakiishayna korneelkayna Jelaani taliyahayna Cali Cabdullaahi taliyahayna Xanafi Shiic Isaaq. alxamdulillah shalay waxaan ku talaabo qaadnay nimanka argagixisada ah oo maanta ku soo duulay wadankeena ku takhrifulaayo mar waliba haddana midaan ka noqon doono ma aha ilaa aan ka dhimano amba ay ka dhintaan. waxaan diyaar u nahay in dalkayna aan difaacano mar waliba ilaa ay gabar naga dambayso kama heri doono. haddii aan ahay hoggaanka ciidamada dib u xureenka jiinka webiga waxaan baaq ugu farayaa nimanka khawaarijka ay argagixisada ah inaan ka heri doono oo lama ah. shalay waxaan ka dilay rag gaarayo 26 ruux aan ka dilay birigana waxaan diyaar u ahay meel alaala meeshay ku jiraan in aan aga daba galo oo aan ku dilo amba ay igu dilaan. anigoo ah Cabdi Axmed Ibraahim ku magac dheer abaandulaha ciidamada dib u xureenka jiinka webiga maanta kama noqon doonay haddii aan ahay ciidamada dib u xureenka jiinka webiga ee lagu magac daray Afjar. maalmihii ugu dambeeyay waxaa soconayay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxaana howlgalladaasi fudufulinayay ciidamada dawladda iyo waliba kuwa xureynta jiinka iyagoona ka wada tuulooyin hoos yimaada deegaanka Xawaadley. maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa Universal TV deegaanka Xawaadley gobolka Shabeellaha Dhexe.